لنا متقاند شارموتو إبرد قادشو يكون مشغول iyo asturnaansho iyo allabari iyo in ilaahay iga cafi aad tirahdid kaad kaa ku gashid dembigaad kaa ku gashid ayaa kuugu filanba horta waqti iyo time inaad ku kulmisid ee wejigaagan dhammaadka ah ee dudumada 60 sano howd ku taalo aada uga ekaatay soo baani wase soo baano daba cunugay saqiira suujis ina cabdinaasir ciise kaahin mashquulkaaga ma baahna kumana haleelisay mar dambana kaama waxaan u wanaagsan daawadayaal meel walba oo dunida ka joogtaan waa anigoo Zahaboy halka naga daawanaysaan waa maqal tube kusoo dhawaada muuqaalkana maanta haddii inta muuqaalka u gudagalin daawadayaal haddii taa marka koorisa aad channelka soo boqoto subscribe saar sidoo kalena video like gareys si aad u hesho muuqaalada barta mar walba aan soo gelino oo aad xiiso leh haddaba saacadii u dambeeyay waxa baraha bulshada qabsaday Mubarak October iyo Farxiyo Fiska inay kala tageen ee isfureen haddaba waxa arrimahaasi ayaa social media la isla dhaxmareen balse qalalaas kadib Mubarak October iyo Farxiyo Fiska ayaa waxay soo fadhiisteen bartooda ayagoo sheegayaan inay Mubarak October iyo Farxiyo Fiska ayna kala tagin ay isla joogan ee waxyaalahan beenta ay sheegaysiin aad dadku ku faafinaysiin xagee ka keenteen ay waxay leeyihiin mar walba waxaa jira dad jecel inay dhibaatadana faafiyaan mar waxaa jira inay dhahan Farxiyo Fiska way xanuunsantahay haddana waxay tilmaameen inay sidoo kale dhahan way kala tageen si kastaba ha ahaatee arintani ayaa joodiyay ee ka hadlay Mubarak iyo Farxiyo October ee ka hadashay youtuber aan oo halkiis uu kusoo bandhigay inay kala tageen youtuberkaas oo Shiino Cule ayaa bartiisa kusoo dhigay wuxuuna kusoo dhigay Mubarak October iyo Farxiyo Fiska haddaba arintaasi ayaa beeniyay Farxiyo Fiska iyo Mubarak October oo waxay leeyihiin sheega meeshii aan ku kala tagnay aniga iyo Mubarak October waxaan barabagaadada dadka la haysiin naga dayo oo mar walba waxaa jeceshiin inaan dhibaataysiin ee ilaahay ka baqo oo faranaga qada si kastaba ha ahaatee Farxiyo Fiska ayaa waxay sheegtay meeshan mar walba hadda inay joogto Hargeysa mar walba Somaliland ay dadka Soomaalida mar walba u jeceliin dhibaatadooda balse waxay go'aansatay inay aado dalkaasi London ee ka digi doonto ayadii iyo saygeeda Mubarak October ee israaci doonaan maadaama London markii la tago nin walba noloshiisa u yahay oo isku mashquulan haddaba waxay tiri Soomaalida ayaa marka dhex joogtid ku mashquulayaan si kastaba ha ahaatee arintani ayaa saacadii u dambeeyay baraha bulshada qasatay maadaama ay gabar iska soo duubay Mubarak October markaasi ay waxaala isdhaafsanayeen ee halkaasi kujukuju iyo shumis ay isdhaafsanayeen si kastaba ha ahaatee muuqaalkani ayaa waxa loo maleeyay Mubarak October inuu gabadhaasi uu hadana uu guursaro uu jecel la jilayo iyo Farxiyo Fiskana ay kala tageen arintaasi ayaa social media saameynta ku yeelatay maadaama Mubarak October iyo Farxiyo Fiska markii hore joogi jireen dadkana waxa u maleeyeen Farxiyo Fiska iyo Mubarak October inay kala tageen balse Farxiyo Fiska iyo Mubarak October ayaa bartooda soo fadhiiseen ayagoo kala tagin haddaba Mubarak ayaa asagana wuxuu leeyahay gabadhaas asla doon waxay ahayd Farxiyo Fiska intaan isguursanin ka hor ayay ahayd gabadhaan isla soconay balse waxaa jira dad oo hadda muuqaalada soo bandhigayo oo safa ee noo rabaan ceebtana banaanka ay u keenaan balse waxlaas ma jiraan ayuu leeyahay xogaa maalmahan samxad bay dib soo celiyeen dadkii iska social media dhibku hungurigu ka galay aad iyo aad la iyaga laftooda dad xilmaayan gurigu ma ka galay waxaan khaasatan aad waa taagayaa inankan magacayga ku isticmaalay Facebooka ee sawirada war fanaanada soo dhigayay asmasaban oo walaashay gabadhaasi weliba ka dhigay gabadheedana inaan kala tagnay waxaan leenahay caadis gargadeero waxaan guriga kula fogaan aad ku salaam salaam انت وانا جعل وسماها تطلنيس وسلام marka caada haddaba sidoo kale waxaa dagaal dhex maray gabadhii la soo duubaysay muuqaalada Mubarak October oo martaasi baraha bulshada lagu soo faafiyay iyo Najma Nijaad ayaa waxay isku dirayaan hadallo dagaal ay isku dirayaan arrimo foolxun ay isku dirayaan bartooda oo nin walba marka ka dambayso oo muuqaalo isla soo beegsanayaan haddaba Najma Nijaad iyo gabadhii Mubarak October marka la soo duubi jiray ayaa muuqaalo isla beegsanayaan ayagoo bartooda iska caanayaan ay tin hawada isku dirayaan oo arrimo foolxun iyo arrimo nooc walba ay fashilayaan si kastaba ha ahaatee aan idin fasaxo muuqaalka Najma Nijaad iyo gabadhan kale ay hawada isku marnaan xaatiri waxaad socotid masaasaad meel la soo shalo tagta oo dorkaasaad keenta tacaliso
waan kuu naxayaa is astur caar baa tahay dhibaatadii buuqa jooji tooba yaa rabbi dheh astur meelihii loogu talagalay in la asturo isku qabo kule iskuma qabanayso sanad kasta waa dashaa wixii kaa dhalayna mataqaanidi sharamuuto cibrad qaadasho iyo ku mashquul iyo asturnaansho iyo allabari iyo in ilaahay iga cafi aad tirahdid kaad kaa ku gashid dembigaad kaa ku gashid ayaa kuugu filanba horta waqti iyo time inaad ku kulmisid ee wejigaaga dhammaadka ah ee dudumada 60 sano howd ku taalo aada uga ekaatay soo baani oose soo baano daba cunugay saqiira suujis ina cabdinaasir ciise keen mashquulkaaga ma baahna kumana haleelisay mar dambana kaama soo hadlayo naya waxaa tahay bahal dhilaa oo isnacday oo nolosha ka dhacday oo wax leelo waxay tahay jirin oo sharaf markii hargeysa sharaf ka weyday xamar sharaf ka raadisay naya adiga ma anigay la hadla fiir qurxay markii aad xamar joogtay mubaarak October wuxuu kugu qabay qodba siru kaaga dhanaansan jiray Liloy waa kii kula tagi jiray xeebta Liido ee wax doona kugu soo sameyn jiray uu ka soo tagay ufku kuurisan ku ka qabsaday ma faantay markii hargeysa aad timidayna wadi hargeysa kula tumin jiray aniga adigu waan istaqaana way isla joogtaa baa leen ma garatay marka adigu aniga iima soo jawaabi kartid ba Bashiir Hanuuniyana waxa liyaala waxa tahay markuu ku ogaaday ayuu ka tagay cawaaladeernaanu maanta gacantayda ku jira ma faantay Liloy sinacday wax aliyaala waxa tahay maanta waan ogahay waan garanayaa cid iiga ka sheekeynaysa ma jirto anigu kilibyadaadii oo dhan waan ka soo wada darsaday mubaarak October waan soo dhigaa hadaanan dunida kugu ceebaynin oo dunida ceeb uga bixin magacaygaas masabal ma yiraahdo Liloy xamarna waxaad u joogto waa la wada ogyahay walaal macaani hays qasin baan ku dhahay qasin xamar waxaad u joogto waa la garanayaa Bashiir Hanuuniyo wuu ku nacay imadii ilaahay oo dhan markay indhaha ka qabsatay ay cid kula hadli weeday uu nin weyn ka xiiran waayay ay cid saa ku soo eegi weeday urtay Liloy bacaysad yahay dunida ceebad uga baxday ma is ogtahay horta af noolna oo hadlaba leeyahay ayna wiciya adii maaba sida ku hadlayo saa ku soo maanta cawaaladeeranu gacanteeda ku jira kilibyadaadi ani gacanteeda ku jiraan calishan awood aad leedahay maanta ku soo hadashay ma jirto sharaftaadu gacanteeda ku jirtaa Liloy waana soo dhigaa dunidoo dhan waan kugu ceebaynay halka aad galaysid calishan sharaf iyo qurux ka raadinayso bal soo sheeg ma fahantay teeda kale noqoto adigoo markaan hargeysa joogtay eed meelaha ku dhudhuman jirtay luuqyada oo cawaaladay ku soo qabtay calishaan wax aliyaala waxa tahay ku ogaaday oo adiga qurux sharaf ka raadiyay xamar imikana markay cid kula hadli waday inamada yar TikTok iyo ciyaalada adiga ku meeraysto asma iyada ha eegin aniga i qadari muuqaaladaas iyana farahaaga ka baxsanin waa wiilkayga hooyadii wiilkayga mustaqbalkiisa ka fikir asmo iyada ha eegin dagaalkiina ha eegin muuqaaladaas iyana farahaaga ka baxsanin